Wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii la yaabka dunida oo aad ka daawataan toddobaad walba sahanka channel. Waa mar kale iyo barnaamijka la yaabka dunida. Tartanka garweynayaasha adduunka oo lagu qabtay dalka Austria waxaa magaalada Liganka ee dalka Austria ka furmay mid ka mid ah tartamadii ugu la yaabka badnaa dunida, taasoo lagu tartamayo garka iyo shaaribka oo siyaabo badan oo aad u kala duwan loo soo jaray. Waxaa lagu kala xushtaa quruxda garka, habka uu feelan yahay. Tartankani oo labadii sano marba la qabta waxaa ka soo qayb gala 300 oo tartamayaal ah kuwaas oo garweynayaal ah. Wayne Howard ninkani wuxuu leeyahay awood cajiib ah taasoo ah in dunida kaga yaabsaday dhex istaagidda barafka qabowga zaa'idka yahay. Ninkani wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhex dabaasho barkad baraf ah asigoo wax dhibaato ah aan ka soo gaarin. Ninkani ayaa dhashay sanadii 1959 wuxuuna ku dhashay magaalada Sittard ee dalka Holland. Waxaa loo yaqaanaa The Iceman ama ninkii barafka ahaa. Ninkani magaciisu waa Gary Tyner, waa shakhsiga ugu maqaarka dheer dunida ama ugu maqaarka jilicsan dunida aan maanta ku noolnahay. Gary Tyner waa shakhsi hibo u leh inuu jiido maqaarkiisa intuu rabo. Maqaarka dhirirka calooshiisa ayaa gaaraya 6.25 feet